إلهي وحي ليهي وأنكو إكرامي وكو وناجني وكو عذابي هذا أدو عبسيدي إذا أدي لالس وذنوب تسكئ لالس ودقحي صوته أنا لكو عذابي ما هي إلهي ساسو لي سبحانه وتعالى وحال يدي منك لديه جري سلطان الزاهدين إبراهيم ابن أدهم رضي الله عنه إبراهيم بن أدهم رجي سلف كاية وناكسنابو كمدها رجي أهل الزهد هاي الدنيا كتغي وإلهي دا عديس سبحانه وتعالى أقعي أيو كمدها مالما المها كمدها أي جماعة سؤالين وحي رادين وصينا بما ينفعنا بل وح إلهي نبو أنفعه وخيرا نودر دارا إبراهيم بن أدهم فقال وحي رضي الله عنه إذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنيا فاشتغلوا أنتم بأمر الآخرة هدي على ركتان dadku ayagoo isku mashquulinayo umuurta adduunyada inay xoolo helaan bay doonayaan inay madax noqdaan bay doonayaan yani waxa alla wixii adduunyada oo quruxdeeda oo ziinadeeda ah unbay jecel yihiin oo isku mashquulinayaan daaro dheer inay dhistaan bay rabaan beero waaweyn inay yeeshaan bay rabaan baabuur fara badan iyo diyaaraday doonayaan haddii aad aragtaan dadku inay adduunyada isku mashquulinayaan fashtaghiluu antum biamri alaakhira آخر أمر كذا يسكون مشغولية هل أدوية وأفانية وحلقة تقهية وإيه آخر يسيد دافن مثل الغباق هانا يولي كذا لقد دمانين وآخر وإذا اشتغلوا بتزيين ظواهرهم فاشتغلوا أنتم بتزيين بوادركم هذه على ركتان dadku يسكون مشغولين يا ظاهر كذا إنه قرحيانهم لبس وناكسن إنه قاتان هي بدي يعني قرح بدنك إنه يشان إثمان adinku waxa isku mashquulisaan baadinkiina saad wanaajin lahaydeen daahirkan quruxda badan waxba ma tarayo haddii mar yani caqiidadaadi iyo yaqiintaadi iyo tawakkulkaagi iyo waxaagi hadday hallaysan yihiin oo qalbigaaga iimaan fiican baan ku jiray yaqiinna aada lahayn bidhaantan quruxda badan wax ma tarayso maxalli nadrillaahi alqalb meesha ilaahay addoonka uu ka eegayo waa qalbiga wey ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa جمالكم إلهي مفيرنا يسوردنا إيا قروحدنا ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ساس النبي لي صلى الله عليه وسلم إلهي ظاهر كينا وحبك ما إيجي محل النذر الله القلب ماشي إلهي وأدونك كطع على عني أو كفيرنا يا قلبك مرك قلبك وناجس بعدين كاغو هو ناكسنال نبي عليه الصلاة والسلام دعوين كيس وحاكمدها إلهي يوكيل سرتيدا متكخير بدن على نيدي دول يا waxa aad muujinayso dadka u muujinayso waxa la doonayaa waxa ku qarsoon oo baadinkaaga inuu ka wanaagsan yahay baa la doonay ay maxay acmaashan daahirka waxa laga yaabaa istutus iyo waxaan fiicnay inuu ku jiro way baadinkaagu inuu wanaagsanaado la doonaya baadinkaagu inuu wanaagsanaado marka hadday dadku daahirkooda qurxiyaan oo bidhaantoodan kor quruxsan tahay adinku waxaad qurxisaan buu leeyahay bitadiina bawaadinaku داردير في اللوين يدار داردير بروا دبغيين ودستو فاشتغلوا بعمارة القبور قبرك إنا العمرتان كاسكو مشغولية ما هي اللي قريق الرسمي ومر بقى نكوري إنه قبرك قبرك نوحي أتصوى عمل فشو ومبات كيف اللي يساوي القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار قبرك وحو نغنيا بيرها جنة كمدا أما قدك النار تكمدا واسيدو عملكيسو هاون قفكو عملكيسو سيدو هاون marka ka fikir qabrigaaga saad ku dhisi lahayd amal wanaagsan baa la doonaya qabriga inaad ku dhisto qofkii adduunyada dadaalo oo wadada wanaagsan ku dadaalo mutaabacada nabiga ku dadaalo calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa wax wanaagsan buu ugu tagayaa qabri qurux badan buu u tagayaa وإذا اشتغلوا بعيوب الناس dadka ceebahooda hadday isku mashquuliyaan dadku waa sida dadku loo badan yahay in dadka wax laga sheego oo qofka kale wax ka sheego ceebta dadka uu arkayo fashtaqilu adinku waxaad ku mashquushaan bicuyubi anfusikum naftiina ceebteeda ku mashquulo ceebaha dadka lagu weydiin maayo adiga hadhow laakiin ceebtaada lagu warsanaya adigu iswanaajiyo istoosi ceebaha adigu aad leedahay taas ka fikiro ka murugo sida aad ku baabiin lahayd oo ku zuulin lahayd akhlaaqda wanaagsan aad ugu sifoobi lahayd akhlaaqda xun kaana aad uga dheeraan lahayd adigu ku dadaal haba ceebaha dadka isku mashquulino waxa yaani liibaanay baa leeyahay ninkii ceebtiisa ku mashquulo oo dadka ceebtooda uga mashquulo qofkaas liibaanay waxa halaagsamay oo halaag ku dhacay
dadka ceebtooda uu ninka arkayo ceebihiisana asaga hilmaamay oo waxba iska ogeyn asaga. imaamu shaafici ashcaartiisi waxaa ka mid ahaa lisaanuka laa tadkur bihi cawrata mri'in fakulluka cawraatun walinnaasi alsunun. carabkaaga marnaba ha ku sheegin ruux bini aadama ceebtiisa iyo cawradiisa. fakulluka cawraat, adiga dhammaantaad ceeb socotaa tahay, adiga dhammaantaa ceeb socotaa tahay. walinnaasi alsunun, dadkuna carab bay leeyihiin. haddaad dadka ceebahooda sheegto dadka dacaayadayso oo xumaantooda una aad raadiso, adigana ceebtaada banaankaa unbaa lagu hayaa. hela adigaba ceeb baad leedahay, dadkuna carab bay leeyihiin. waida ishtaqaluu bikhidmati almakhluuqiin, dadka khidmadooda hadday isku mashquuliyaan, dadku qofba qof buu u shaqaynaya. ninkii faqiirkaa nin taajir u shaqaynaya, kii madaxda waa loo shaqaynaya, waa la daba ordaya. bini aadam khidmadiisa hadday isku mashquuliyaan, fashtaqiluu bikhidmati rabbi alcaalamiin, adinku waxaad ku mashquulshaan oo isku shuqlisaan bikhidmati rabbi alcaalamiin, ilaahay khidmadiisa ku dadaal. ilaahay u khidmay adugu, markaasaad wanaagsanaanaysaa. watakhiduu yeesha min haadihi dunyaa, adduunyadan zaadan yuusilukum ila alaakhira, adduunyada waxaad ka samaysataan sahay iyo zaad idin gaarsiinayso aakhiro idin gaarsiinayso. fa inama addunyaa, adduunyadu masracatu alaakhira, aakhiro beerteedii wey. wasiyadiisii iyo dardaarankiisii ibraahim binu adham suldaanu zaahidiin ninkii la odhan jiray wuxuu ku soo dhammeeyey watakhiduu min haadihi dunyaa zaadan yuusilukum ila alaakhira, adduunyada intaad joogtaan oo nooshihiin maalmaha yare adduunyada aad joogtaan waxaad samaysataan zaad idin gaarsiinayo aakhiro. fa inama dunyaa, adduunyadu masracatu alaakhira, aakhiro masracadeedii wey. wax alla wixii adduunyada aad beerato unbaad aakhiro goosanaysaa hadhow. marka wax wanaagsan ku dadaal. zaadka iyo sahaydu iyo idinku yaraanin, zaadka iyo sahaydu yaysan idinku yaraanin, sidaasuu leeyahay. siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni xadiidkii aanu soo maraynay abu dar alkafaari siduu nabigu ugu dardaarmay wastaksiri zaada fa ina safara dawiil buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. war zaadka badso, sahaydu yayna kugu yaraanin, camalka saalixa badso, fa ina safara dawiil, safarka kaa dambeeya aad buu u dheer yahay wey. hadhow qiyaamaha markii la tago haddii camalku kugu yaraado sahaydu kugu yaraato waa ayaan daro, waad kurboonaysaa hadhow. marka inaad zaadka badsato kaasaa la doonayaa. adduunyada markaad joogtaadaba jeclayn haddii aad dad la safarto waddo aad gasho inaad dad sahay wato oo ayagu diyaara oo isku filan, adigoo waxba wadanin ama wax yaroo aan kugu filnayn wato inaad la socoto ma jecli. aakhirana sidaa atardaa an takuuna rafiiqa qawmin lahum zaadun wa anta bigayri zaadin, saasuu yidhi shaacirki. ma jeceshahay inaad raacdo ood la socoto qoom zaad wato adigana waxba aada wadan, ayaga unay ku yidhahdaan nakeen iskala kaana soco, ma jecli, naftaada diibkuma ah. hadhow aakhiro hadday dadku sahay la wada yimaadaan, nin walba isticdaad uu soo sameeyey adduunyada camal wanaagsan uu la yimaado, adigana waxba aada wadanin, hadda soo ayaan darro ma ah, waa ayaan darro. waxaa kaloo la wariyey ibraahim binu adham nin wuxuu ahaa aada iyo aada u cajab badan. dadkii salafka ahaa ee wanaagsanaa ee zuhaadda ahaa ee adduunyada isaga tegey ee isticdaadka sameeyey adduunyada yani xaqiiqadeeda intay ogaadeen ka jeestay ayuu ka mid ahaa. nin baa u yimid baa li ibraahim binu adham radia allahu canhu, faqaala lahu wuxuu u yidhi yaa abaa isxaaq, abaa isxaaq waa kunyatu ibraahim binu adham, innii musrif calaa nafsi, naftaydaan ku xadgudbay buuli, dembi badan baan sameeyey. faacrid maa yakuunu lahaa zaajira, waxaad ii bandhigtaa bal i wacdiyo wax naftu ay ku sajroomayso oo xumaanta iyo dembigan ay ku sii taagan tahay ay uga harayso ii sheeg buuli. faqaala ibraahim binu adham wuxuu yidhi in qabilta 5 khisaal, 5 khislo haddaad yeesho oo waqadarta calayhaa aad samayso, lam taduruka almacsiya, macsiya kuma dhibayso. yacni wax dembi a kaaba dhici maayo 5taa sifo haddaad xaqiijiso ood ku camal fasho, wax macsiyo la yidhaahdiyo adiga maba is arkaysaan. qaala wuxuu yidhi haati ya abaa isxaaq, waa waxa aan doonayo bal ii sheeg. waxa naftan celiyo oo xumaanta iyo israafka ka reeba waxa aan raadinayo weeye, ii sheeg. qaala wuxuu yidhi ibraahim binu adham aluulaa, 5taa khisla midda ugu horrayso, fa idaa aradta an tacsi allaah,
إلهي إن عاسس ومركا دونت تعالى كرهاي فلا تأكل رزقه رزقي سأدها عنن لا سكير قال وحير منك فمن أين أكل حقينك عنيا وكل ما في الأرض رزقه wax alla waxa dhulka yaalo oo dhan ilaahay risqigiisa weeye xagee wax ka dhadhaminaya marka hadaan ilaahay risqigiisa u daayo xageen ka helaya risqi waxa dhulka yaalo oo dhan waa wax ilaahay risqigiisa uu leeyahay qaala wuxuu yiri ibraahim bin adham yaa hada kanow afa yaxsunu bika miyu ku wanaagsananaya anta akula risqahu ilaahay risqigiisa inaad cunto oo watacsiyo hadana aad caasis suuroobaysa in ilaahay uu ku irdaaqay oo ku wanaajiyo risqigiisa aad ka cunto markaad cuntadiisii ka dheregtana aad ilaahay cisyaankiisa u kacdo ilaahay caaso miyay wanaagsantaa qaala wuxuu yidhi laa haddaba iska daawin macsiyada iska ilaali ama ilaahay risqigiisa u daa ha ka cunin ahaaniya midda labaad wuxuu yidhi idaa aradta an tacsillaah ilaahay inaad caasiso markaad doonayso haddaad damacdo inaad ilaahay caasiso falaa taskun shay-an min bilaadi meel ilaahay ardadiisa ka mid a haba degin dhul kala raadso gurigiisa u daa dhulkiisana oga tag meel kale aad qaala wuxuu yidhi haadihi acdam tanaaba ka sii weyntii hore ayna askunu xaggeen askunayaa ma meel kaloo aadaan garanayaa meel aan ilaahay ardadiisa ahayn oo aad tegaysa miyaa jirto maya qaala wuxuu yidhi yaa haadaa kanu afa yaxsunu bika miyuu ku wanaagsanaanayaa an taakula risqahu ilaahay risqigiisa inaad cunto wataskuna bilaadahu ardadiisana aad askunto oo fatacsiyahu haddana aad caasisa wey miyay wanaagsan tahay qaala wuxuu yidhi laa ahaalisatii saddexaad qaala wuxuu ku yidhi idaa aradta haddaad doonto an tacsiyahu ilaahay inaad caasiso wa anta taakulu risqahu wataskunu bilaadahu adoo ilaahay risqigiisa cunayo ardadiisana askunayo fandur mawdican laa yaraaka fiihi meel uuna ilaahay kaa arkaynin daydayo faacsihi fiihi ku caasi meel uuna ilaahay kaa arkaynin raadiyo meeshaa ku caasi un qaala wuxuu yidhi yaa ibraahiim maa haadaa hadalkaas muxuu yahay say ku suuroobi kartaa inaan meel uuna ilaahay iga arkaynin aan tago wa huwa yatalicu calaa maa fi saraa'ir xataa qalbigayga waxa ku jiro oo qalbigayga ku soo dhacaya ama uurkayga ku soo dhacayuuba ilaahay og yahay inteen oga dhuumanaya oo meeshuusa ilaahay arkaynin waa xagge qaala wuxuu yidhi yaa haadaa ayaxsunu bika miyuu ku wanaagsanaanaya an taakula risqa ilaahay risqigiisii inaad cunto oo wataskuna bilaadahu arladiisana aad askunto oo watacsiyahu aad caasiso wuxuu yaraaka asagoo weliba ku arkayo oo wayaclamu og maa tujaahiru bihi waxaad samaynayso oo xumaanta oo yacni cisyaanka oo samaynaysa ilaahay ku arkayo miyay wanaagsan tahay qaala wuxuu yidhi laa wax habboon ma ah inaad ilaahay adeecdo unbuu kugu leeyahay mooye asagoo ku arkayo sidaana kuu ikraamay oo risqi ku siiyey oo meelaad askunta ku siiyey oo ku dejiyey in haddana aad khilaafto amarkiisii aad jebiso waa shay aada u xun alraabica khisladii afraad wuxuu yidhi idaa jaa'aka malakulmowt malakulmowt hadduu kuu yimaado liyaqbada ruuxaka ruuxdaada inuu qibloodo faqul lahu waxaad u tidhaahdaa akhirnii ii kaadidhe xataa atuuba ilaa aan toobad keeno wa acmala lilaahi saalixan malakumowdka la hadalo waxaad tidhaahdaa warriyow ii kaadi ilaa aan ka toobad keeno camal wanaagsanna aan ka sameeyo idaah ku dheh qaala wuxuu yidhi laa yaqbalu minii igama aqbalayo ma iga yeelayo qaala wuxuu yidhi ibraahim binu adham yaa haadaa kanow fa anta idaa lam taqdir haddaada karaynin an tadfaca canka inaad iska reebta almowta mowt litatuuba inaad toobad keento fa kayfa tarju lkhalaas dembiga aad samaynayso inaad ka fakatood ka badbaaddo seed u rajaynaysaa marka maxaad isku hallaynaysaa maxaad doonaysa inaad ku fakato alkhaamisatu midda shanaad qaala wuxuu yidhi idaa jaa'aka azabaaniya malaa'igta zabaaniyada la yidhaahdo naarta dadka ku cadaabo ilaahay uu ku sheegay inay yihiin 19 markay kuu yimaadaan addoon caasi ahaadahayd waad dhimatay markii naarta lagu kaxeeyo oo zabaaniyadu intay ku qabtaan ay doonayeen inay naarta kugu ridaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha liya'khuduuka ila annaar naarta inay kugu ridaan falaa tadhab macahum ha raacin diid ma idin raacaya dheh
qaala wuxuu yidhi innahum ayagu laa yadacuunii ima daynayaan waxbaa la isu'aalaya qadaadkun baa laigu soo dhegaya igama tegaayaan walaa yaqbalu minii igamana aqbalayaan awood haddii la yidhahdana ayaa iga xoog badan amarna way qabaan oo ilaahay bay amar ka haystaan mar hadday igu soo dhegaan waa bes ma iga yeelayaan igamana tegayaan qaala wuxuu yidhi fakayfa tarju najaata fakayfa sidee baad tarju u rajaynaysaa an najaata koritaan idan marka inaad badbaado maxaad doonaysaa marka inaad ku badbaado haddii aad waxba adigu iska reebi karin hadday ku kaxeeyaanna aada diidi karin maxaad doonaysaa marka inaad ku badbaado fa qaala wuxuu yidhi xasbi ninkaa wuxuu ahaa nin naftiisa ku xadgudbay oo dembi badan kasbaday buu ahaa ibraahim bin adham markuu kelimaadkaa ku yidhi wuxuu yidhi xasbi bas waa igu filan tahay buur marka adduunyada inta yaroo aan joogno haddaanna ka sahay qaadanin oona ka daad qaadanin waan ka shallaayaynaa walaalayaal shallayto ayaa nagu dhici marka waxaa la rabaa inaan isticdaad samayno oon diyaar garowno inta yar ee aan wakhtiga haysanno wakhtigu uusan naga dhammaanin intaasaa la rabaa inaan isticdaad samayno nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man khaafa adlaj waman adlaja balaqa almanzil alaa ina silcata allaahi haaliya alaa ina silcata allaahi aljanna man khaafa ilaahay ninkii ka baqo oo ka cabsanaya adlaja wuu guuraa ma seexanayo habeenkii daacadu u guuraya waman adlaja ninkii guurana balaqa almanzila manzilkii uu doonayey buu gaarayaa alaa ina silcata allaahi haaliya badeecada ilaahay waa qaali wax raqiis iyo dheeldheel lagu helaya ma aha alaa ina silcata allaahi aljanna badeecada ilaahay waa jannada janno waa qaali dadaal bay rabtaa mujaahadatu nafsi bay rabtaa inaad yacni dadaal badan iyo isticdaad aada samayso yaa lagaaga baahan yahay war badeecada ilaahay waa qaali waxaa la rabaa inaad ku dadaasho ood ka faa'iidaysato nabigu calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi binu cumar yuu sidaa intuu garabka u qabto wuxuu ku yidhi kun fi dunyaa kaannaka qariib ow caabiru sabiil cabdullaahi binu cumarow adduunyada waxaad ku noqotaa nin qariib ahoo kale qofku hadduu musaafir yahay oo magaaladan uu ku cusub yahay oo uu yimaado dee wuxuu ka yaqaano ma jiro gurigaas uu degan yahay unbuu joogayaa ama masaajidka unbuu joogayaa magaaladaba dadba kama yaqaano wuxuu ka garanaya male waa qariib adduunyada saasoo kale ku noqo ayada dhan isaga dhex baxo qariib ku noqo oo camal fara badan iyo hawlo fara badan ha ku yeelanin adduunyada ow caabiru sabiili nin waddo sidaa u gudbaayo oo kale adduunyada ku noqo wa kaana ibnu cumar cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdo idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa wa idaa amsayta falaa tantadir isabaax haddii aad waaberiisato oo ilaahay nabad kugu waaberiyo galabtii baad gaaraysaa haysdhihin wa idaa amsayta haddaad galabaysato qoraxdu kuu dhacdana falaa tantadir isabaax subaxii ha suginoo berri subax baad gaaraysaa hays odhan naftaada waxaad ku tirisaa dadka dhintay ku tiri isku xisaab wey yacni dadaal samee marka lagaa dhaqaajin doono adduunyada lagaa wadayo ma garanayside isticdaad samee oo dadaal